waxaan halkan message u soo maranaynaa anagoo ah muwaadiniintii Soomaaliyeed ee ka soo jeeday gobolada waqooyi gaar ahaan gobolka Sanaag anoo ka hadlaya afka aqoon-yahanada iyo waxgaradka iyo dhalinyarada iyo haweenka inta aqliga u saaxiibka ah waxaan message u soo maranaynaa halka dadka islaamka ah dadka Soomaaliyeed dadka muwaadiniinta dhabta ah oo aan ahayn dadka arxan laawayaasha ay calooshooda shaqaystayaasha aan ahayn dadka aqliga leh aan halka fariin soo maranaynaa fariintayadu waxay tahay Netanyahu ilaahay kii uu nacladay qoomka ilaahay nacladay yuhuudda ah oo dalkeena Soomaaliyeed kooxo arxan laawayaal oo calooshooda shaqaystayaal ah qaar ka mid ah gobolada waqooyiga Soomaaliya gaar ahaan gobolada galbeed Burco iyo Hargeysa oo aqoonsaday dawlad madax bannaan oo mucjiso la yaab leh in dawlad Soomaaliyeed leh loo aqoonsado laba gobol oo ka mid ah oo 200 kiiloomitir iyo 50 isku jira in loo aqoonsado dawlad madax bannaan oo wax nasiib darro ah waxay tilmaamaysaa taasi aqliga ku jira yuhuudda bay tilmaamaysaa waxaanu bogaadin mudan cid walba oo ka digtay ama ka jawaabtay arintaas Netanyahu hadalkiisa yuhuudka ilaahay nacladay team nimanka jooga gobolada waqooyi gaar ahaan Hargeysa iyo Burco oo dad Soomaaliyeed dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliyeed bay ka mid yihiin nin qabcad ku nool looma aqoonsan karo dawlad madax bannaan iyadoo dawladda federaalka Soomaaliyeed ay dalka mas'uul ka tahay waxaanu message u maranaynaa mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo shalay hadlay mudane aad u maasantahay hadalka qiimaha badnaa message-kan ku soo maranaynaa haddaan nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gobolada waqooyi oo afkooda ku hadlaya gaar ahaan gobolka Sanaag waxaanu madaxweyne inaad qaato go'aan adag oo qaraad oo laga jawaabayo inaad Turkiga ka siiso saldhig base berbera ama balaas qoray si aynu uga difaacno maadaama dawladda Turkiga tahay dawlad muslima xilliga aynu doonano aynu iska dii karno waxaanu u baahanahay yuhuudda cid walba oo dalkeena laga difaaci karo in laga hortago oo laga difaaco inta waa message-kan ku soo maranayno madaxweyne waxa kale aan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka warsangeli sandaleed adeerana warsangeli sandaleed baan la yiraahdaa Soomaaliland lama yiraahdo Puntland lama dhaho adeer gacali anna warsangeli baan la yiraahdaa anoo ku hadlay warsangeli waxaan leeyahay adeer gacali iyo muujiya dadnimadiina iyo dareenkiina degmooyinka ay ka mid yihiin Dhahar Xingalool Damalaha Garre Buraan iyo degmooyinka Calmadow gaar ahaan sida Galgala Afurur waa in la iskugu soo baxo mudaharaad lagu muujinayo qadiyadaada dadnimadaada Soomaalinimadaada iyo waxa weeyaan yaqiimka aad yaqiimsan tahay inaan yar oo gaalo u horkacaya oo dadka Soomaaliyeed u horseedaya cadaab iyo meel aan loo baahnayn waxa weeyaan waana dalkeena ka difaacano dadka Soomaaliyeed ee aqliga leh ee jooga gobolada waqooyi waxaan leenahay warnimo yahow aayad quraan aydan haysata maanta oo ku jirta fi suurati Ibraahim aayadaasi alam tarayla ladina an'ama Allahu kuwa ilaahay ugu bishaareeyay nacamka ilaahay ugu bishaareeyay doona ku kufriyay ilaahay ugu bedelay xallu qowmuhu daarul baar taasa idin hortaala maanta waxa weeyaan yasalawnaha wa bi'sa nahar cadaabto waxayna galayaan cadaab kuwaas marka niman yahow wayna ka digdigataan arinta dad Soomaaliyeed baa tihiin ee Soomaalinimadu wayna ku dheer tahay Soomaalinimada laga kala goynayo